ashir jaraa'id ay qabteen qaar ka mid ah waxgaradka nabadoonnada iyo culimaa diinka ku dhaqan degmada Xarfa ee gobolka Mudug ayaa waxa uu ahaa sidii dad aqoon leh loogu xuli lahaa xubnaha baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya waxayna beesha Maxamed Cumar Maxamuud sheegeen inay ka beelahaan ku hawlan yihiin diyaarinta shakhsi matali kala bulshada Soomaaliyeed lana tartansiin doono cid walba oo buuxin karta shuruudaha rag iyo dumarba sidoo kalena waxay dhammaan beelaha Soomaaliyeed ugu baaqeen in laga doonayo inay keenaan dad tayo leh saxaafadeedkan waxaan ugu talagalnay inaan ku ogeysiino dowlad goboleedka Puntland ee golaha xukuumadda beesha Cumar Maxamuud golaha dhaqanka golaha guurtiga inaanu soo diyaarino ku hawlanahay xubintii federaalka dowladda Soomaaliya aan ku ka haynay taas oo aan u haynay ama ku masalanay Puntland gobolka Mudug beelaha Cumar Maxamuud kareerahan anagu aan haynay inaan soo diyaarino ayaan ogeysiinana xubintaas oo ah haduu Ilaahay ka dhigo xubin insha Allah wax ka bedeli doonta Soomaaliya horumarkeeda iyo jiritaankeeda iyo geedi socodka nabadeed dawladnimo iyo baaqa dawladnimo oo loogu baaqay inay noqoto xubin wax ka bedesha kuna masalaysa sharaf badan iyo aqoon iyo karti meesha ay ka soo jeedo dawladda Puntland iyo gobolka ay ka soo jeedo qofku xubin ka soo jeedo iyo beeshu inta uu ka soo jeedo beeshu inuu ka soo jeedo intaba inuu noqdo qof ku masali kara wax ummadda ku dirsato insha Allah bil kariim ummadda Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa inuu noqdo qof kastoo la keenayo inuu ahaado mid wax ka bedeli kara wixii maanta jira oo Soomaaliya ay u heelantaan u baahan tahay qofkaas oo ah hadii Ilaahay qadaro qof leh aqoon karti aaminimo